bismillah alxamdulilah. horta niman yahow meeshaas dagaalaa ka dhacay, dagaal dad badan ku dhintay ayaa ka dhacay, dagaal laba qabiil oo soomaaliyeed oo wada dega gobolka hiiraan ayaa ku dagaalamay. marka waxaan fiicnayn ayaa ka dhacay, waxaan ilaahay raalli ahayn ayaa ka dhacay, dad ayaa ku dhintay ma garat, dhaawac fara badanna waa jiraa ma garat. marka dagaalkaas aadaan ula soconnaa haddaan nahay ka oday ahaan ama nuqba ul hiiraan, aadaan ula soconnaa. dagaalkan yaa ka dambeeyo dhex maraya beelaha walaalaha ee halkaasi wada dega? adeer runtii dagaalkaas wuxuu ka dhacay horta meel xadbeenaadka agtiisa ah, soona aabaaley ilaa feerfeer meel ka sokaysa oo sida xuduud beenaadka macnaha dhinaca soomaaliya ayay ku tilmaamaan. marka dagaalkaas waa dhacay, waana la ogyahaa cidda ka dambaysay, waayo ciddii weligeedba ka dambayn jirtay oo qabaa'ilada soomaaliyeed siyaasad markay damcaanba hubka isugu dhiibi jiray ayaa ka dambaysay, dabadana ka afuufaya ma garata. waayo ciddaas annagu waxaan u naqaanaa kooxda farmaajo ma garata, kooxda farmaajo ama hirshabeelle ayaa ka dambeeya ma garata, oo qolyahaas ayaa ka dambeeya. maxaa caddayn u ah? caddaynteeda waa iska badan tahay, maxaa yeelay dadku waa is-yaqaanaa, waa dad deegaanka wada dega. haddee askariga laftigiisu inta iska dhiga tuutaha iska dhigu qorigiisii iyo booshkiisii iyo rasaastii uu lahaa ayuu u qaatay. marka rag badanaa la yaqaanaa hebel iyo hebel iyo hebel la dhihi karo, kadibna markay soo laabteen tuutahooda gashaday ayaa jira. marka tuutaha waa la iska siibayaa, magacii qabiilkuna waa jiraa ma garata, control ma le, waayo kooxduba waaba koox iska maaragtay fawdada ka shaqaysa oo yacni gacmo shisheeye ay ka dambeeyaan oo xukun oo qaybi waayo, waa wax nidaama ma leh, waa iska maaragtay dad waxay rabaan sameeya ma garan. khasaaraha ka waran hadda dagaalkan u geystay intii aad ka warhaysaan maxay gaarsiisan tahay? yow khasaaruhu ma yara, khasaaraha ilaa waxaa naloo soo sheegay, annagu ma naqaan wax dhaawac ku dhiman doono, ilaa waxaa naloo soo sheegay 8 ma garan. 8 dhimasho ah? 8 dhimasho ahaa sida xaqiiqda ah oo naloo sheegay. maxaa la isku haystaa ilaa hadda oo ka dhexeeya beelahan? dagaalkan horta waa dagaaladii dhici jiray ee soomaaliyeed, kadib yacni siyaasad kaleba ha soo gasha hadday rabto, yacni dhul beereed ayaa la isku haystaa ma garata, dhul beereed weliba fatahaadii ay soo gashay oo qoyan oo abuur u baahan ayaa la isku haystaa ma garata. meeshaas ayay ka bilaabatay ma garata, siyaasad kaleba ha isaga jirta hadday rabtee. waa gartay, hadda waa sida xaaladda? wallaahi niyow xaaladda haddee dad isdilay waaye oo maaragtay meydad badan iyo dhibaato fara badan u kala gaartay. wax wanaaga oo hadda dhex yaallaa ma jiraan, ma wada hadlin oo hadda wada hadal ma aysan samayn, oo saa dad madax bannaan ma aha. dhinacaasna waxaa jooga niman la yidhaha new police oo maaragtay ethoopia riddada new police ayaa joogta, dhinacaas feerfeer, dhinacaanna waa qolyahan kale oo ayagu dagaalka ka dambeeyey waaye. marka wax wanaaga ma jiraan, shirshir beena iyo waxyaabo feerfeer ka dhacaa iyo kii gobolka looga yeeray guddoomiyihii gobolka hiiraan ninkay ku sheegaayeen, waxyaabahaas waa jiraan ma garata. maantuuba tegeyba feerfeer tegey, maalin dhaweedna shir xumo yeesheenna wuu fashilmay ma garata. saasaan ula soconnaa. wasiirka warfaafinta hirshabeelle dowladda federaalka wuxuu ku eedeeyey inay iyaku dagaalka ka dambeeyaan ka dhacaya deegaanadaas, marka maxaad kala socotaa? adeer waa run oo dagaalka horaan idinkugu sheegna inay ayagu ka dambeeyaan oy abaabulaan, magacyo kale ha isaga bixiyaano, hadhahaana dhulbeereedaa la isku qabsaday, laakiin waa wax ay kooxda farmaajo iyo kuwan hirshabeelle dabadhilifka ah ay ka dambeeyaan oy abaabulayaan waaye. dagaalo badan oo sidaan oo kale u dhacay oo ay ka qayb qaateen maaragtay ciidamada qoladan dawladda sheeganaysa, oo tuutihii la iska dhigay, qoryihii la qaatay, rasaastii la qaatay, waa jirtaa. xataa mararka qaarkood waa ka qayb qaatanayo tuutahooda watay ka qayb qaataan oo saas uma fikiraan oo yaan tuuta laydinku arkin ma dhahaan, laakiin waa shaki kuma jira taas, waana runtiis ninkaas sida uu sheegayo, ninka wasiirka warfaafinta sheeganaya ee hirshabeelle waa runtiis si uu og yahay. qof marmar xoogaa waa yaraa dantuu doonaba ha ka lahaadee waa ka hadla, xaqiiq waa runtiis, waaqiciga dhabtaahu sheegay ma garata. waa garta, dardaarankaadu muxuu yahay? hadda dardaarankeena wuxuu yahay, annagu haddaan nahay nuqubada gobolka hiiraan ka oday ahaan waxaan leenahay dadku wax badanaan la hadalnay, haddana waa la hadlaynaa, kana daali mayno. waxaan wadnaana waa dacwo, ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ajir ka xisaabsanaynaa. war waxaan leeyahay dad yahow wax badanaad isdisheen, wax badanaad maalaayacni isku disheen, wax badanaa hubka la isugu kiin dhiibay. waxaan ognahay beelaha degan gobolka hiiraan waa dad wada degan gobolka,
dhul fara badan oo boqolaal kilomitir ka badan ayaa waraabay oo webigu kusoo fatahay waxaa ka baxa marka dhulkaas maaragtay beero aada u fara badan sida sisinta geleyda iyo waxyaabo lamid aha ka baxa xaqiiqatan dhulku waa idinku filan yahay ilaahay subxaanahu watacaala ha laga cabsado dagaal waad ogtihiin annagu idin sheegi mayno dhibaatada uu leeyahay waad ogtihiin dad walaalaha ha tihiin dad xidida ha tihiin waxaa tihiin wiil iyo abtigiis ayaa tihiin dadka reer hiiraan waa ognaha qabaa'ilo badan ayaa ku nool gobolka hiiraan oo ilaa 10 qabiil iyo wax ka badan ayaa ku nool waxaan leeyahay dadii hubka la isugu dhiibaya gaaladu isku dirayso waxaan leeyahay ka fiirsada arrintaas iyada oo ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsada waxaan la hadlaynaa anagu dadka muslimiinta ayaan la hadlaynaa waayo ninkii maaragtay gaala ama ridaa isaga maba la hadlayno kaas waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala u toobadkeen kadib alla ka cabsigu yimaadaa marka waxaan leeyahay dadka shacabka ah ee ishaacaadka lagu furay ee maaragtay la isugu dhiibay hubka oo la yiri war meeshaan dhul barwaaqaha yaala qabsada kuwa kalena la leeyahay dhulkii miyaa la dhacayaa reer hebel waa idinku soo duulayaan anigu dadkaas ayaan la hayaa muslimiinta ah oo ishaacaadka iyo propagandada lagu furay oo xamiyada qabyaaladu ay dhex martay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha laga cabsado soomaalidu waxay dhihi jirtay dagaal wiil kuma dhashay wiila ku dhinta sax waayo markii qabaa'il ay tahay waa run wiil waa ku dhintahay kuma dhasho laakiin waxaa faa'iido lagala kulmaa marka gaalada lala dagaalamayo waad ogtihiin dalkiini waa la qabsaday dalkiini wadamo shisheeye ayaa qabsaday waata gobol la idin qaybiyey waata federaal la idin qaybiyey waxaas waxaa waaye labada qabiil ee yacni federaalka qabiilka kale hala dagaalamo waayo wax badan ayaanu ka hadalnay u sheegnay oo nir war federaalku waa fidno waa fawdo waa diin la-aan waa macnaha si la idin xukumaa la rabaa oo waxaa laleeyahay hirshabeelle iyo galmudug shaqe iskuma leh waa laba gobol aa laleeyahay markaasaa midba mar la cunaya marka waxaan leeyahay fidno dhan waa waxa la yidhaha federaalka wax badanaanu ka dignay ilaa bilowgii ilaa haddana waa ka digaynaa federaal ha la iska ilaaliyo ummadda soomaaliyeed ama islaamka ahi waa mid almuslim akhulmuslim waa xadiidkii nabigeena sala allahu calayhi wasalama marka walaala adinkaa walaala ah iska ilaaliya gaaladan oo maaragtay idinku soo duushay oo dhulkiina iyo khayraadkiina rabta inay qabsato soo gaabay nabadoono gabagabadan ku dhowna insha allah